واتاي aad baad u macsan tahay saacadad wasiir sidaad faafahinta u bixinayso markaan u soo noqono marka sooyaalkaagi ka dhoomaan ahaan maxaa kugu yaabka badnaa inta dunida saarneed ama ciidankii ama siyaasadda wallahi saddex qodob baa aniga igu yaabadneed mar waxay ahayd markii aniga meesha madaxda aan ka ahaa inta la qabtay lagu xiray oo waliba niman oo careysan oo aan sharci markaas aqoonin oo inta ay qabteen oo fayl la geliyeen ayay waxay yiraahdeen yaata aniga marka waxaan qabay dhar oo jingal oo daraawishta ay qaataan fayl marka qofka labaad ma qofka lixaad camal baana marka dadka hore soo weydiiyaan qof wax sheegto markii aniga igu yimaadeen baa waxa la diyaata waxaan ku iri mareexaan baana markii inay wada qosleen kulligood wal mareexaan galabta meeshaan ma joogay aan lagu ciyaarina qabiilkaada noo sheeg bayna marka ma waxaan ku iri mareexaan baana markaasuu wuxuu yiri nin maxamed mere la oran jiray oo aan filahayo in runtii ciise muuse inuu ahaa aan u danaynayo waliba aadan ciise nimanka la yidhaha inuu ahaa yaa oo aad u raamaysan oo tamihiisa sidii gabdhihii oo kale garbaha ay joogaan ayaa wuxuu yidhi xagga u soo baxa marka waxaan isku daray aniga mareexaan baan ahay nin korneyl ahaan ahay waxaan ahay taliyihii saldhigga dekeda berbero baan ahay intaasaan isku daray dadki markuu iga soo dhex saaray runtii hadduu nool yahay waa salaamaya maxamed miraal la oran jiray taracas meel la yidhaahdo ayuu ku jiray dadkii uga soo dhex saaray baabuur u watay markaas ayuu isaaray marka wuxuu berberu keenay wuxuu yidhi haddii aan ku sii daayo waa lagu dilayaa xabsigu keenay marka xabsigii baa lii keenay wuxuu ii keenay joodari qol gooni oon maxaabiista ahayn ayaa lii geeyey markaas horta waxay ahayd marka igu yaabka badnayd oo waxaan islahaa talow ma noolaanaysaa mise waa lagu dilahayaa markaasay ahayd markaasay ahayd marka labaad oo igu darnayd waxay ahayd oo aada maaragtay mushkulada ii ahayd oo aan aada u yaabay aniga oo taliyaha xoogga ah oo nin hadda aada runtaan u jeclahay cabdiqaybdiid la yidhahdana oo taliyaha booliiska ayaan shir waxaan u galnay amisom markaan shirka amisom u galnay baabuur laga dhacay meesha la yidhaha baydhabo oo UN-ka ay ku qoran tahay oo calamadii wato oo shabaab saaran yahay oo raadiyaasha ku xiran yihiin ayaa koranyo ka timid jaamacadda muqdisho ay soo dhex galeen nimankii ciidanka watay burundi bay ahaayeen ma aysan dhihin runtii maysan dhihin war baabuurtaan ugu dhex jirto maxay tahay ma aysan dhihin dareenkaasba maysan keenin marka dareenkaas mayan keenin baabuurkii madiina gate irid la yidhaahdo ayay dalaq kasoo yidhahdeen waaba soo galeen gudahay soo galeen markay gudihii soo galeen midna meesha logisticadu aaday midna anaguna soo aaday qaraxi koowaad wuxuu ka dhacay meesha logisticada qaraxi labaadna anaga nagu dhufteen aniga generaal cabdi qaybdiid gudahan ku jirnay runtii dhaawacyo weyn nama soo gaarin barasharkii aniga sarwaaladii iyo shaatiyaalkii way iga jeexmeen darajadii meesha aaday ma aqaano sarwaalkii macawis buu isu bedelay laba telefoon baan gacanta ku waday oo labadii telefoon meelay aadeen ma aqaano gacmihii dhiigahayaan arkay labadiiba cabdi hoostaydu saa u fadhiyey juf baan inta siiya meel duleeshaan arkay meeshii baan ka baxanay markaan meesha ka baxno meel bannaan aan taaganahay dadkiina wax galgalan haya iyo wax dhintay ay yihiin ayaa waxaa noo yimid niman Ugandhaysa nimanka Ugandhayska waxay damcaan inayna dilaan
waa annaga taliyayaasha ciidamada ah waxay yidhaha adinkaana qarxiyey war eedan maana qarxinin qaraxa dibaddu ka yimid adinkaan soo geliyay meesha annagu ma wadanin may adinkaana qarxin dharki maya barasharki qaraxaaba dharka naga jeexayba waxaan yani shaatiga waxaad moodaysaa macawis aad qabtid sirwaalka suumankii baa noo celinhayo darajada meelay aada lama yaqaano adinkaana qarxiyey bay leeyihin qoriyay nala kortaagan yihin war eedan maana qarxinin markii dambe ayaa waxaa noo yimid nin South African oo qaraxii hore ka soo badbaaday oo ordahayaa noo yimid ninkii baa wuxuu ku yidhi qaraxa adinkaa magaalada soo geliyey xerada soo geliyey baabuurtaasuu la socday nimankaana khalad baad ku haysataan haddaad dishaanna waa wax adinka aada qaadaysaan mas-uuliyadooda markaasi gadaal nooga istaageen ninkaas South Africaanka hadduusan ahayn wayna dili lahayn taas markii barnaamijkii 9 saac camal bay nimankana soo daayeen raalli garayn iyo orod iyo ababa iyo aniga waxaan ku yiri aniga raalli garaynna ma rabo waxna ma rabo waxaan ka fiirsanayaa inaan idinla shaqeeyo madaxweyne Sheekh Shariif khayr Allah siiye baa noo yeeray markaasuu wuxuu yiri ha hadlina ma nooshiina shibnahay ilaa hadda sidii baan ku aamusan idinku ma waxaad rabtay marka shir jira inta qabataan in xiriir shir jiraadina inta qabano xilkan iska casilno nabaday aan dhaanana sababta haweeyo shabaabkina laayay iyo annaga bayna kala garan waayeen marka qaybta labaad oo igu daran taasay ahay qaybta saddexaad waxay ahayd runtii qayb oo shakhsi ahayd oo ahayd muxuu ahay aniga oo 2 xidigla ah ayaan waxaan aad u isticmaali jiray dhinaca isboortiga iyo maxaan ku idhaahdaa dhinaca inaan jirkayga dhisa jimicsiga waxaan inta badan beengaha iyo la ciyaari jiray saraakiisha sare iyo madaxweynaha ayaan la ciyaari jiray marka firfircoonadeydii iyo orodkaygii systemkay Soomaalidu cadow bay isku tahay iyo madaxweynaha beengaha aan la ciyaari jiray systemka iyo nidaamka iyo wixii iyo ayaan marka waxyaalaha igu daran bay ahayd ayaa niman oo dawladda ka soo horjeeday oo inay inqilaab sameeyaan rabay ayaa waxaa la dhuumal ba ku jiro ninkayga marka sidaas ahaa niman intay muxuu ahaay show firfircoonadeeda ka yaabeen ayay yiraahdeen midkan maad iska qabataan oo aan la maqan ku tuurtaan markaas waxay yiraahdeen nimankan waxa ku jiro oo madaxtooyada waxa uga jiro dhuumal ba uga jiro hadalkii oo ma aragtay un maxaan arkay oo madaxtooyada dhex socda aad baan marka u shakiyay markaan aad u shakiyay ayaa waxaan ku iri waana baqay runtii yaan madaxweynaha u tagay waxaan iri madaxweynuhu waad mahadsan tahay intaasaan kula shaqaynayay in saaxiibul ciyaal aan nahay waxaan rabaa in oo ilaa meesha ka baxsadaan rabaa ilaa meesha waxaan kuma jiro oo shaqada kuma liiba maba fahansaniba waxaan rabaa baa idin ciidanka booliiska lagu wareejiyo intaan warqad soo qortay warqaddii madaxweynaha wuxuu iigu qoray waxaa lagu wareejiyey ciidanka booliiska wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxaa la farayaa inuu ku wareejiyo ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiskana markuu sarkaalka soo gaaro ha shaqo geliyo tababarna ha u diro inta baan la tagay inta baan la soo garaacay inta baan ka saxiixay laga saxiixay madaxweynaha marka madaxweynaha laga saxiixayba markiiba
الله رحمه جنرال محمد علي السمتر ورقته إذا أتكتو وزير كاشانديكا وأنا أتكي قصدي من أوشكي بس وحير بوليس كان كورة وهل درجوا الدلعسي كابتن ويقدر يجي بوليس كانوا يقوليج marka saddexdaas dhacdo ay ugu talneed aniga noloshayga waa tahay gabagabadii waan kusii shaqeynaa wasiir waadna maxsan tahay door caynkee ayaad ku lahayd aasaaskii Jubbaland wallahi Jubbaland horta saddex qodob ba jiritaankeeda waa wax la taaban kara ayaan ku lahaa qodobka koobaad Jubbaland الله رحمه بروفيسور غاندي بابا تليا حوق مركان وحو اي اها وزير كاشانيك waxaan ku guuleysanay inaan ciidan 2400 aan ku xareyno meesha la yiraahdo Kenya ciidanka markii uu tababarka dhameystay waxaan ka soo howlgelinay xuduudaha ciidankaas markii howlgelintooda laba ujeedo lahayd ujeedada koobaad inaan shabaabka ka xoreyno dalka ujeedada labaadna in maamul goboleed laga sameeyo waxaan markii aan dhoobley qabanay xaggana ceel waa la qabtay oo aan ciidan raas kamboonin markaa loo bixiyeyna la dhihi jirayna aan dagaalka aan isla galnay ayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaan isku wareysanay meel la yiraahdo xaarka waxaan ku yiri marka gudoomiye la oran jiray gudoomiyaha marka waxaan ku yiri Axmed walaalow aniga warlord ismii baan ku yiri inaan Kismaayo qabsado ma rabo waxaan rabaa in inta la qabto maamul loo sameeyo adiga maxaad rabtaa aniga waxaan rabaa buu yiri inaan nabad ku noolaado ganacsada nahay ganacsado shabaabkaas dhaxrada laga xoreeyo ونقول لي هذا وجهه ما حنقول مرة بتد وهذا ربطة إن معمول كمدح كنقط لكن وكل قبرنا مركان كل قبرنا وكبور الجنيه أنا كان راس كمبونين تأنا مجا كبدلنا تراوش بنقول بحنا إن مالها لقبته أيام وقت جينا مركا انتاس عن اسكوب دري أيام وها لما إنه حتى إن النول هنا أنا ملاين هي أو مركا أحمد آد سوح الجنيه لكن وضياشي ونكمل أها أو حارك أحمد الجبنة وحنقول أم الجبية أما هي الجبنة حويه إنه وحربنا معمول قبلات إلا قسم هيو هاي كسماية مركل العبد معمول النص قلب كلمات وحنسكت ده عيدا كراس كمبونين تاها عيدا كي كلا أو أنو أن حريري وحوق دلك الصوماليات ها إن إسفهان سينو on hal ciidan aan ka dhigno qodobkaasna wuxuu ahaa qodobka labaad qodobka saddexaad wuxuu ahaa oo asagana aan isleeyahay aad buu muhiim u ahaa soo gelista ciidamada Kenya ay soo galeen Soomaaliya gacantooda ugu weyn iyo soo galistooda iyo caawinaad inay caawiyaan sabab baan u ahaa ana sabab u ahaa sababta haween waxaan garanayaa Libooya ka soo lugeeyay ilaa Qooqaani markii la isku daro waa 108 kilomitir waa inta baabuur ma la raacin waxaan waday ciidamada Kenya in ay caawiyaan maxaa yeelay isku maan filneen annaga waxaan uga baahnay waxay ahayd ciidan dhisan oo si fiican u dhisan bay ahayn hub waaweyn way haysteen annaga hubka aan haysanayna iyo hubka shabaabka haysteen same bay ahayn waxaan marka ka dhaadhicinay inay ciidamadu ay caawiyaan ciidanka ay tababareen inay caawiyaan
waxaa arrintaas aada gacan iigu siiyey khayr allah siiye wuu nool yahay hadda ra-iisul wasaarihii dalka muxuu ahay cabdiweli cali gaas oo arrinta aan ka wada soconnay oo yidhi ha ku caawiyeeno wado muxuu ahaayey xiriir la sameeyey wasiirka arrimaha dibadda oo dowladda Kenya iyo wasiirka gaashaandhigga casuumay ugu yeeray garoonka heshiiska markay kala saxiixdeen ku dhawaaqay ciidamada Kenya inay ka mid yihiin AMISOM marka doorkaas waan ku lahaa doorka labaad aan ku lahaa waxay ahayd dhismihii soo daabiloostii odayaasha gobolka Gada la keenayay keentii halka la keenayay doorashadii madaxweynaha na qaybta ugu xoog badan ayaan ku lahaa ilaa hadda ilaa xilligaas inta ka dhexle waxaan filayaa Jubbaland wax badan laba bilood isku xigto xataa meel ugamaana maqnayn marka hadday noqon lahayd dhismaha ciidanka waa ka qayb qaatay hadday noqon lahayd maxaan ku idhahaa doorashada madaxweynaha waa ka qayb qaatay hadday noqon lahayd xoreynta al-shabaab waa ka qayb qaatay hadday noqon lahayd wacdigelinta iyo abaabulka iyo talabixinta waa ka qayb qaatay hadday noqon lahayd heshiiska qabaa'ilada waa ka qayb qaatay marka Jubbaland runtii waxay macno noo leedahay jiritaankeeda ayay macno ku leedahay maxaa yeelay dad Soomaaliyeed oo fara badan ayaa ku nool marka waxaanu la dagaalamaynay warlords wax la yiraahdo in Jubbaland ay dib ugu noqoto oo Kismaayo gacanteeda ay dib u gasho la adlu halkani aniga familka aan ka dhashay oo Mariixaan la yiraahdo 10 sano ku dhawaad bay haysteen waxay diideen dowlad goboleed in laga sameeyo maxaan ku idhaahdaayey inay dowladii dhalatay adeecaan maxaan ku idhaahdaayey wax dabakahaye madow meel la yiraahdo Madiino ku taal xataa oo xamar markii baabuurta la soo raacay la yiraahdo dabakahaye madow ii joojiyana kamayna sameeyeen anigana 10 sano Kismaayo ma soo istaagin Kismaayo waxa ugu dambeysay gurigan madaxtooyada markii Maxamed Siyaad uu furayo 1984 ayaa Kismaayo ugu dambeysay waxa igu horeysay markii aan shabaab hadda ka qabanaynay iyo markii madaxweynaha la dooranay marka waxaan ka cararaynay warlords wax la yiraahdo inaysan dib dambe Kismaayo gacanta ugu galin insha Allah hadda ka bacdin u gali mayso waa maadsanta inta aad ciidamada ku jirtay ama siyaasadda ma jirtaa saaxiib ku qaali ah oo aad ku weyday dagaaladii kala gedisanaa dalka ka dhacay hadii aan lahayd ku yiraahdo galay dawladda dariska hadii aan lahayd kuwii ugu dambeeyay shabaab iyo waxyaabo la mid ah laga sheegay wallahi horta dad badan oo aan saaxiibanahay oo qaali ah waan ku waayay dagaaladii aan ka soo qaada Muqdisho oo kale aniga wiilkaygii aniga aan dhalay oo sarkaal ah oo booliiska ka tirsan oo aad qaali ugu ahaa oo Xasan Yuusuf Xuseen la yiraahdo waa ku waayay waxaan kaloo ku waayay nin aan aad saaxiib u ahayn oo injineer Cadow la oran jiray oo dhalashadiisa u deejeen ahaa oo intay shabaabka dileen muxuu ahaa waa maalinkii uu yiri Muuse soo habeenkii uu yiri Muuse Sooli dhumaalo balaay ama afka nooga gelisaa markaasaan waxaan aray ninka meydkiis inaan habeenimo inta soo qaadna keenna mooyaane Kaaran degmada Kaaran ayaa lagu dilay ninkaasna wuxuu ahaa nin aad runtii igu kulul ninka labaad oo aad saddexaad oo aad igu kulul wuxuu ahaa Maxamed Nuur nin la yiraahdo oo generaal ahaa oo booliiska ah CID da saaxiib aan ahay oo qaraxii xalane ku dhintay oo markaan soo galay shirka wuxuu yiri kelmaddu yiri waxay ahayd ama banaanka nagu la qarxinaya ama gudaha nagu la qarxinaya arinta ka taxadir buu marka ragaas muxuu ahay oo saaxiibka ahay runtii waan ku waayay marka runta ku sheego dadka Soomaaliyeedna wax tar u ah aad firaaqada tahay ka dhumaanahan maxaad qabataa xilliyada firaaqada aan lahay waxaan qabtaa laba shay marka u horeyso waxaan sameeyaa socod iyo sport iyo inaan jirka dhiso oo la dagaalamo hilib fara badan inuusan ifuulin
marka labaadna waxaan ku mashquulaa amniga aan hadda madaxda ka ahay informationkiisa telefoon kasta oo soo dhaco inaan qabto si aysan waxba ii dhaafin iyo inaan mar walba la tacaamulo oo weydiiyo xaaladda meesha ay marayso ciidamada dagaalka ku jiro ama kuwa furunta hore ha noqdeeno ama kuwa degmooyinka ha noqdeeno ama kuwa magaalo madaxda hadda aan joogna ha noqdeeno maxaysaa ciyaaridooda iyo weliba daawashadooda ciyaaraha waa xiiseeyaa waana fiirsadaa yaa taageertaa waxaan daneeyaa ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed special kuwa horyaalada oo Muqdisho ka dhisan oo kale ayaan aad u daneeyaa oo aad aan u taageeraa iyo kuwa Kismaayo oo haddaba socdo baan aad u daneeyaa waa tahay ugu dambeyn suugaantu soo isku tii suugaantu waagaan yaraa waxaan dhageysan jiray heesaha gabar aan filayo hadda inay nooshahay boorama inay joogto aan filayo oo la yiraahdo Aamino Cabdullaahi Xirsi oo reer boorama ah yaan heeseeda aad u jeclaa oo aan dhageysan jiray marka hadday maqlaysana waa salaamaya oo ay noosha aad baad u mahadsantahay waan kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga dheeraa iyo wareysiga saad nooga aqbashay